وعنا wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad caalamka nagala socotaan weerarka magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag lagu soo qaaday kuma koobna beelaha dhulbahante Warsangeli iyo Harti oo kali ah balse waa dagaal ballaaran oo Soomaaliland lagu soo qaaday waxaana ku midaysan cadawgii Soomaaliland oo dhan sida maamulka Soomaaliya, Djibouti, Eritrea iyo dawladda Masar. qorshaha dagaalkani mar hore ayuu soo bilaabmay waxaanu jawaab u yahay heshiiskii Itoobiya iyo Soomaaliland dhexmaray horaantii sanadkan aynu ku jirno ee 2024 hubkii iyo rasaastii ay Masar ku soo daabuleysay magaalada Muqdisho waxa ujeedadiisa koobaad ahayd dagaalkan oo ah in lagaga hortago fulinta heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya wada galeen. sidoo kale beesha daarood ayaana si buuxda u aqbashay in ay noqoto manpowerka ay adeegsanayaan xogaga ka soo horjeeda Itoobiya in ay marin badeed ka hesho Soomaaliland isla markaasina noqoto wadanka ugu horeeya ee aqoonsada Soomaaliland. maamulka Hawiye ee magaalada Muqdisho ma diidana in Itoobiya marin badeed hesho balse waxa ay doonayaan in Soomaaliland waligeed ahaato mid ku hoos jirta Muqdisho. sidoo kale maamulka Hawiyaha ee magaalada Muqdisho waxa uu taageersan yahay siyaasadda dhaqaale ee kaligii taliyaha Djibouti oo ka soo horjeeda in Soomaaliland noqoto marin dhaqaale oo muhiim u ah bariga iyo bartamaha Afrika. xogaga ka soo horjeeda heshiiskii Itoobiya iyo Soomaaliland waa kuwii isbaahaysiga kaga dhawaaqay magaalada Casmara ee xarunta wadankaasi Eritrea waxaana isku raaceen in hubka Masar iyo ciidamada ay u tababareen Turkiga, Mareykanka iyo Eritrea beelaha daarood iyo Hawiye in loo adeegsado dagaalka Soomaaliland lagu qaadayo oo ay u doorteen in Ceerigaabo laga bilaabo dhaawacoodana in ilaa Masar, Turkiga, Djibouti lagu daweeyo ayaa la isku raacay. haddaba muwaadiniinta Soomaaliland iyaanay u arkin dagaal dhulbahante ama Harti ku soo qaaday magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag ee loo arko dagaal cadawga Soomaaliland awoodiisa dhaqaale, hub, rasaas iyo ciidan uu isku keenay kuna doonayaan in ay ku soo afjaraan Soomaaliland iyo halganka madaxbannaanideeda. waxaa la gudboon in Soomaaliland ay si buuxda u colaad qaadato shicib, xukuumad, asxaab siyaasadeed, culimo iyo ganacsato. waxaa kale oo waajib ah in qorshe lagu difaacayo dalka iyo dadka la sameeyo oo xoogga iyo dhaqaalaha iyo aqoonta loo jiheeyo difaaca jiritaanka dal iyo diimeed.